السلام عليكم دمان تاgeerayaasha nagu xiran dunida meel bay ka joogan waa anagu ah bahda Digo Films oo ay ku xiran waxaan leenahay dhamaantiin kullu caam wa antum bil khair afta macnaha ciida kadib riwaayad waxa jirto muran badan dhalisay waxaan rabaa riwaayadaas inaan la wadaago macnaha aad nala soo aragtaan nala soo fiirsado faansa هذا كلنا هذا بوسينا لحظة بس محمد لو كان ولي عاطل تلقورينا واحد جاب هذا محمد جكده ساعة ورفعت محمد جكده أنت تدخل ماشي أنت محمد ساعة ونص بدن هذا تتر خلينا كري بوسي حاجة وصاص على وحنا مرة هذا جسد محمد سن استاك محمد سن تريس أنا بوسينا أنتو سحاجي كمان ما ماشي ما حق سعود استاك بل هذيك كل استاك هذه محمد بس ترى تيست بديدي حنتها صوبتها محمد شغله ودي سمعتها حاجة هدلي شغله معقد روايد واركتين dadka qaar way ka yaabisay dadka qaarna way ka qoslisay magarat laba xasle ma liibano oo macnaha waa qiso dhab ah oo dad ku dhacdo magarateen waxaan la soo wadaagtay gabar walaasheena teeda kale waxyaabaha anaga aan jilno waxay u badan yihiin wax dhacay oo qof bilaadan ku dhacay oo mtaqaana oo fikrada noo soo diray hadii ay qiso kugu dhacday noo soo dir haday macquul tahay asxaabteena la wadaagina waana ku mahadsantiin waxaan hadda isku day macnaha dadkii noo soo diray baqshadaha ama fariimaha yar saddex iyo afar waxaa aan taabto marka baqshada ugu horeyso waxay naga soo gaartay ama akhrina qofkii naga soo gaartay waa ururka dhalinyarada kacdoonka midnimo waa maasanta commentiga quruxda badan aadna soo gaarsiisay wuxuu dhahay waa film qiiro badan Soomaalida waa gabar miskiin ah filimada ay jishana saas ay u badan yihiin atirishada waa atirisho weyn ama atirisho macnaha caalamkooda waa maasantahay commentiga quruxda badan aad noo soo dirtay midnimo anagana waxaan ku leenahay soo dhawow oo nagu xirno oo noqo walaalkeena ama saaxiibkeena noo dhow fikrada waxay noo soo gaartay taageerayaasha ugu qaalisan magaceeda waxaa la ladan baby waa gabar aad iyo aad nagu xiran muddo dheer commentigeeda in akhriyana mtaqana xiiso weyn ayuu ugu hayaa waan maasantahay ladan commentiga quruxda badan soo gaarsiisay waxay tiri nafsigu xumaa gabadhaysay hadaad u galaysay haddana u raali gelinay fikrada ninka keenay Saddam Libax waa maasantahay fikrada ninka keenay anoo ku hadlay waxaan ku leeyahay mahadsanid baqshada saddexaad ama commentiga saddexaad hadii aan akhrino wuxuu naga soo gaaray gabar la dhaho Maria Xasan waad ku maasanta commentiga quruxda teeda kale hal mid aan ku ogeysiyo anaga waxyaabaha aan jileeno waa wax qof hore ugu dhacmaahin wax anaga aan la imaan ma garatay hadii aan commentiga ku akhriyo kuna sheego macnaha way tiri wali ma aan arkay tiri ninka dhaqan xun waa maasanta aniga dhaqankayga wax ma laakiin macnaha scriptiga ay asaasiga noqdo ma garatay waxay tiri wali waanan arkin ninka dhaqan xun dhaqan Soomaali ma lahan yahoo ay tiri waa maasantahay commentiga qurux badan hadii aan akhriyo commentiga ama baqshada afraad wuxuu naga soo gaaray waa ururka dhalinta midnimo kacdoon waa maasantahay mar labaad ayuu soo laabtay laakiin comment aad qurux badan ayuu soo qoray saas darteed marka waxaan jecelahay inaan la wadaago wuxuu dhahay wallahi waan qiirooday gabadha ay dhibaysaa ninkeeduna iyada ayuu ku raacay laakiin xaqiiqdii ayuu ogaaday waa maasantahay xaqiiq maahan wax hore u qornay oo la diyaarsho waaye ma garatay walaal macaan waa maasantahay soo dhaw ayaan ku leenahay baqshada shanaad waxay naga soo gaartay gabar aad qaali nagu ah muddo dheer nagu xirneed magaceeda ayadana waxaa lahaa Faadma Fiqi waa qof qaaliya Faadma Fiqi waa maasantahay marka hore waan faraxsanaa oo naagta lagu shaqeynayo laakiin markii naagta la furay ciil ayaa qabtay tiri waa maasantahay waxa tahay gardarada garabka og maxaa yeelay gabadha mtaqaana marka lagu shaqeynayo maxaa ugu farxay waa laba gabar wala isla qabaa waxaan rabaa mtaqaana inay hal dhinac ku ahaadaan xataa haday walaasha tahay midkood waa maasantahay commentiga quruxda samsam samu commentiga waxaan soo gaaray gabar taageero noo ah waxay tiri a'uudu billahi soo idii kara naag kale ayaan kula guursanaa barbaxshaha kaaga fakato wallahi run ayaa madax iyo xanuunay naagaha riwaayadaha han amal waxaan waajilitaan teeda kale waa qiso qof ku dhacdo garatay meesha barbaxsho ma taalo barbaxshada ay ugu dhiftay aniga waa sarkeenaa waa santaa commentiyadan waxa waaye commentiyada ugu kulul oo inoo soo jeediyeen asxaabteena qaaliga ah waa maasantaa commentiga waxay tiri nacas waaye ninku gabadha ka daa afgubnimada doqonyaho waa maasantahay scriptiga macnaha saas ku socdo maahan qof xun ina ahaa iyo malayn ma garatay waa maasantahay commentiga qurux badan Faaduma Cabdi waa gabar dareenkeeda nala wadaagtay dad badan nasaan oo kala dareemayo minyaradu sideedaba xaq ay leedahay waa maasantiin commentiga wuxuu naga soo gaaray Firdowsa Q gabar la dhaho waxay tiri abay aniga waa hadda minyaro inaan noqdo ayaan diyaar u ahay waayo nin xaas la ayaan jecelahay laakiin maxaa ii geynayo gurigiisa xaaskiisa ama meel la isku dul nool yahay waa weel xalida saddex baa keentay anigana sidoo kale saddex ayaa ay keentay waa maasantahay commentiga quruxda badan waana commentiga ugu dambeeyay aan akhrinayo halaas kadib waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo intaas waxay ahaayeen commentiyadii ama dareenyadii aan la wadaagnay asxaabteena kale waa maasantiin
aftadaren kadib waxaan rabaa inaan idin sheego hadda kabacdi waxaan leenahay page YouTube ama waxaan leenahay Instagram ama waxaan leenahay meelo badan oo macnaha social media inaad nala soo xiriirtaan qof alaala qofkii mataqaanaa qiso ama fikrad hayo hana la wadaago dhib malaha wixii macquula ummadda la wadaagayna teeda kale waxaa mahad iskale halka kaamirada oo noo fadhiyo Cabdixakiin Jam halka editingka iyo directorka iyo wax dhan oo noo fadhiyo Saadam Braysi waa maasantiin asxaabteeda qaaliga dhamaan inta kale asxaabta dhigo filim soo xan kaga tagaya nabadin iyo nooli kulanto